anti waxaan oo wanaagsan qiyaarta hawada aan ku saaxiibnay oo idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan idin leenahay waqtiga idin wacnaado ee dhammaantiin muuqaalka la gareeya cid walba muuqaalka la gareeyso waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryeynaa inuu muuraha leedahay ilaahay uu sahlo ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaada uu barakeeyo inta awlaadonkaana ilaahay inuu awlaad baariha uu siiyo inta guurdoonkaana ilaahay guur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan in eebaweyna uu siiyo qof walba muuqaalka leegta ku qabto waxaan ilaahay aan kaga baryeynaa in dambigiisa iyo dambiga waalidkiisa ilaahay uu dhaafo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu si degdeg ah faraj khayr qaba ilaahay uu ugu furo xaasidka waxaan leenahay wa min sharri hasidin ida hasad al hasid la yaflah xaasidnimadu malaha faa'iido rabbi subhanahu wa ta'ala xaasidka ma jeclo oo xaasidka waa waxa qaribay adduunka waxaan ku leenahay hoog iyo qasaara degdeg ah ayaa ku dambeynaysa bi'idnillahi alkariim nabi aadan aruurtiisa midka xaasidka ahaa walaalkiis wuxuu ku dilay xaasidnimo xaasidkana ma faa'iido adduun iyo aakhiraba ee ku qaba leegta lacag maaha waxaan idin soo gudbin doonaa hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo wada barnaamij cajiib ah oo lagu diiwaan gelinayo dhammaan shaqaalaha laguna hubinayo shaqaalaha dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay yihiin kuwa amni ahaan ka madax bannaan ama ka mid noqday dagaalyahanada al-shabaab ama urur hubeysan taas oo keentay in hadda meel gabagabaha ay soo gaarto waxaana howlgalkaasi NISA ee wada ee lagu kala hubinayo shaqaalaha dawladda shaqadii laga joojiyay dad aad u tiro badan oo sida la sheegay ka mid noqday urur hubeysan oo al-shabaab qayb ay ka tahay kuwa kalena waxa lagu helay in shabaab ay ka tirsan yihiin oo waa la xiray halka sida la sheegay hadda in booliska iyo militariga dawladda federaalka ee Soomaaliya NISA ay doonaysa inay hubiso dhalinyarada ka tirsan haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa warbixintaasi iyo waliba qaabka loo kala xulayo shaqaalaha dawladda oo hadda meel gabagabaha uu marayay sidoo kale qaabka la doonayo in ciidamada loo kala hubiyo inay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab arrintaana waxay timid kadib markii xarunta dawladda hoose ee Muqdisho ay isku qarxisay gabar la sheegay inay ka tirsaneed howlwadeennada maamulka gobolka Banaadir agaasimana ka ahayd gobolka Banaadir waxaase sidoo kale arrintan ay imaaday xilli hay'adda NISA muddo fog ugu la shaqeynayay madaxii amniyaadka gobolka Banaadir ee al-shabaab Maxamed Xaajow oo loo yaqaan ilka case Qaalid ama Cadaawe muddo kadibna asoo la raadinaya kana tirsan hay'adda NISA la ogaaday in uu yahay madaxii amniyaadka al-shabaab ee muddada NISA ay raadinaysa waxayna taas keentay howshan hadda NISA ay wadada waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaad aan helnay oo lagu kala hubinayo shaqaalaha iyo qaabka shaqaalaha dawladda NISA ay u hubinayso ayadoo ka taxadiraysa in kuwa badan oo kamid ah ay yihiin ama ay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab waxaana arrintan ay abuurtay qalqal weyn kadib markii Maxamed Xaajow oo loo yaqaan ilka case muddo fog NISA uu la shaqeynayay asoona raadinayay isla ilka case ayadoona saraakiil sarsaro NISA ka tirsan arrintan xilka lagaga qaaday isla markaana la xiray kuwii damiinta ka ahaa Maxamed Xaajow oo hay'adda NISA ku soo daray haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa warbixintaas hadduu Allah awood leh uu saamaxo hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee loo yaqaan NISA ayaa muddooyinkan dambe waxay wadaa howlgal aad u xoogan oo lagu kala soocayo shaqaalaha dawladda isla markaana lagu hubinayo shaqaalaha dawladda ee rayidka ah si loo ogaado in shaqaalahan aysan ka tirsaneen dagaalyahanada al-shabaab haddaba waxaan eegaynaa shaqaalahan ayaa waxaa lagu waday muddo ku dhowaad 6 bilood ah kala shaandheen iyo waliba in la hubiyo shaqaalaha ayaa la sheegay in lagaga yeerayay oo lagula kulmayay xarunta nabad sugidda ee ku leedahay degmada Shibis oo dadka Muqdisho jooga ay u yaqaaniin Habar Qadiijo halkaas oo ah xarunta ugu weyn ee taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA isla markaana xafiis u ah taliyaha hay'adda NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo waliba saraakiisha ugu sarsareysay hay'adda NISA waxaana la sheegay in muddo 6 bilood ah howlgalkaasi uu ka socdo magaalada caasimadda ee Muqdisho gaar ahaan xarunta weyn ee NISA ee degmada Shibis waxaana halkaasi lagula kulmayay dhammaan shaqaalaha ka shaqeeya xafiisyada dawladda sida wasaaradaha dalka iyo sidoo kale xarunta baarlamaanka shaqaalaha rayidka ee ka shaqeeya xarunta dawladda hoose ee Muqdisho oo ah midda ugu weyn ee sida weyn loo baarayay iyo sidoo kale isla howlwadeennada ama dharcadda nabad sugidda ee NISA oo sidoo kale si weyn loo baarayay waxaa la sheegay
sheegay in intay socotay baaritaankan la weydiinayay shaqaalaha su'aalo aad u tiro badan waxaana dad badan ay isweydiinayaan shaqaalaha dawladda ka tirsan su'aalaha la weydiinayay iyo waliba caanka ay yihiin si loo ogaado in ay ka madax banaan yihiin dagaalyahanada al-shabaab haddaba qaar ka mid ah su'aalaha ayaan helnay qaarka kalena waan ku raad joognaa si bulshada ay u xaqiijiso in su'aalahaas ay yihiin kuwa lagu xaqiijin karo qofka inuusan ka tirsanayn dagaalyahanada al-shabaab maadaama xubno badan oo dawladda ka tirsan hadda ay u xiran yihiin in ay ka tirsan yihiin dagaalyahanada al-shabaab kadib markii uu fashiliyay madaxii amniyaadka al-shabaab ee gobolka banaadir waxaana ku jira fanaaniin uu ka mid yahay fanaan ka shaqaynayay gobolka banaadir xil sarana xagga fanka gobolka ka hayay howlwadeen ka tirsanaa maamulka gobolka banaadir gaar ahaan ku-xigeenkii ama ahaa agaasimihii shaqada iyo shaqaalaha ee dowladda hoose ee xamar iyo sidoo kale xubno kale oo aad u muhiim ah oo la sheegay in wasaaradaha dalka laga xirxiray intay howlgalka ee wadaynisa waxaa la sheegay in shaqaalaha la weydiinayo su'aalo dhowr ah waxaana ugu muhiimsan qofka shaqaalaha ah qofka damiinta ka ah wuxuu sheegayaa qofka markuu shaqada dawladda loo qorayay damiinka ahaa oo kafaala qaaday in qofkan mas'uul uu ka yahay wuxuu keeno waxaa sidoo kale la weydiinayaa xilliga shaqaale ahaan loo qoray waana labada su'aalo ugu muhiimsan waxaana nisa ay dabagelaysaa qofka damiinta ka ah iyo weliba hadda qofkaasi wuxuu qabto iyo hore wuxuu u qaban jiray haddii misaal ahaan qofkaasi shaqaalaha damiinta ka ah mar uu ka mid noqday ururka al-shabaab xisbul islaam iyo weliba ururadii soo dagaalamay waxaa la sameynaya in muddo shaqada laga joojiyo ayadoona arrintaasi ay keentay in kuwa badan hadda shaqada hakad laga geliyo nisana ee waddo baaris ku aadan hubinta shakhsiyaadkaasi maadaama shakhsiyaadkii damiinta ka ah hore ay kaga mid noqdeen al-shabaab xisbul islaam iyo weliba ururo kale oo hubeysan waxaa sidoo kale qofka markii laga soo gudbo oo la hubiyo qofka keenay inuu yahay qof lagu kalsoon yahay iyo weliba xilliga shaqada uu ku soo biiray inay tahay xilli xaaladda ay ka degneed xaaladaha waddanka soo maray waa ka soo bilaaw dowladdii madaxweyne sheekh shariif wixii ka dambeeyey waxaa qofka loo yeelanayaa il gaar laakiin haddii dowladdii madaxweyne cabdullaahi yuusuf uu ka mid noqday shaqaalaha dowladda ama tii madaxweyne cabdiqaasim qofkaasi lama marinayo jansuuro aad u weyn maadaama uu yimid xilli xaaladdu ay degan tahay waxaa qofka su'aasha saddexaad la weydiinaya ee tahay ma ka mid noqotay urur hubeysan oo lala jeedo ma ka mid ahayd ama ma ka mid noqotay ururada Soomaaliya ka soo dagaalamay sida ururkii xisbul islaam al-shabaab waxaa soo galay ururkii al-ittixaad laakiin qofka xilligaasi joogay waa qof xilligan da'a waxaana ugu muhiimsan ururada shabaab iyo xisbul islaam qofka hadduu qirto uu sheegay in al-shabaab iyo xisbul islaam uu ka mid ahaa waxay nisa ay samaynaysay in shaqada laga joojiyo gaar ahaan qofka xisbul islaam ka tirsanaa waxay nisa ay ku samaysay howlwadeenno badan oo ururkii xisbul islaam ka soo mid noqday in shaqada si kumeer gaar ah lagaga joojiyo islamarkaana la hubiyo xilligii xisbul islaam iyo shabaab ay isku biirayeen inuu xilligaasi ka baxay ama kadib inuu ka baxay waxaa qofka kadib hadduu ka baxay uu mutaysanayaa gebi ahaanba inuu waayay shaqada dawladda islamarkaana dhaqan celin la geeyo laakiin qofka hadduu ka mid ahaa ururka al-shabaab uusan soo marin arrinta dhaqan celinta sirindi waxay nisa ay samaysay in la geeyo xabsiga dhexe weyn ee muqdisho lana marsiiyo ciqaab maxkamad ciidan sida ku dhacday agaasimihii guud ee shaqada iyo shaqaalaha ee gobolka banaadir kaasoo maxkamadda ciidamada ay ku xukuntay 3 sano oo xarig ah maadaama uusan soo marin xarunta dhaqan celinta ee lagu talagalay dadka ka yimaada shabaab in lagu dhaqan celiyo waxaana la sheegay in shaqaale badan oo dawladda hoose iyo weliba wasaaradaha dalka ka shaqaynayay oo ka tirsanaa dagaalyahanada al-shabaab isla markaana aan soo marin waxaana arrintan ay tahay mid lagu hubinayo shaqaalaha dawladda waxaana jira shaqaale aad u tiro badan oo qaarkood shaqada laga fadhiisay oo hadda nisa ay ku wado dabagal maadaama ay qirteen inay ka mid ahaayeen ururo hubeysan waxaana qaar ka mid ah oo ka mid ahaa al-shabaab laakiin aan soo marin dhaqan celinta la sheegay in loo gudbiyey xabsiga dhexe muqdisho kuwaasoo xukun sugayaal ah maadaama aysan soo marin nidaamkii dowladihii hore ay dejiyeen oo ku aadanaa qofka shabaab ka tirsan in dhaqan celinta uu soo maro waxaana hadda sidoo kale jirta in shaqaale kaloo badan oo shaqada laga joojiyay markii la hubiyay kadib loo fasaxay shaqada waxaase sidoo kale qofka wax su'aalaha la weydiinaya ka mid ah inuu keeno mar kale xildhibaanka ku matala dawladda si uu qofkaasi u daminto haddii uu sheego inuu ka mid ahaa urur hubeysan ama uu ka mid noqday ama qofka nise ay bixin waysa xaaladeeda waxaase sidoo kale dadka su'aalaha la weydiinaya shaqaalaha rayidka ka mid ah guriga ama xaafadda muqdisho uu ka degan yahay waxaana taas lagu hubinayaa in xaafadaha uu degan yahay ay yihiin xaafadaha laisku haleen karo waxaase sidoo kale qofka la weydiinayaa guriga uu degan yahay in milkiyad uu u leeyahay ama inuu gurigaasi uu yahay guri kira ah
haddii uu kiray uu yahay waxaa la weydiinayaa qofka guriga iska leh iyo su'aalo kaloo aad u tiro badan oo aan idinku soo gudbin doonno barnaamijyada kale ee soo socda waxaana hadda la sheegay in nisa ay wajahaysa ama u wacanayso dhanka militariga iyo booliska si loo hubiyo dhalinyarada ka tirsan ciidamada militariga iyo booliska gaar ahaan kuwii dambe ee ku soo biiray militariga iyo booliska si aysan jaanis u helin dagaalyahanada al-shabaab haddaba macluumaadkan dib ayaad ka daawan doontaan dhammaantiin ba ilaahay idin xifdiyo ilaahay umuuraha leedina sahlo allahuma la sahla illa ma jacaltahu sahlan fajcal umurana wa umur almuslimiina kullaha sahla ilaahu inta xanuunsan xanuunka ka dulqaad oo caafimaad ugu bedel ya allah ilaahu dhammaanteen umuuraha leenahay inoo sahla ilaahu awlaadda inoo baraka ilaahu awlaadda inoo xifdi inta awlaaddoonkan ilaahu awlaad baariya si ilaahu soomaaliyana meel aamina ka dhig ilaahu qulubta shacabka soomaaliyeed ilaahu isku keen ilaahay oo qof walba muraadku leeyahay ya allah ilaahu adaa muraadka saale ilaahu muraadku sal allahuma la maani'a lima acdayta wala mucdiya lima manacta wala qaada illa qadayta wala yanfacu dal jaddi minka aljad ilaahu waxaan ku su'aalinaynaa gargaarkaaga iyo kaalmadaada iyo naxariistaada oo aan kugu weydiisanaynaa magacyada wanaagsan allahu la ilaha illa huwa الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ilaahu dhammaanteen waxaan ku weydiisanaynaa nasrigaaga gargaarkaaga iyo kaalmadaada dhammaanteen ba ilaahu noo gargaaro inoo kaalmay kuwa sharta iyo lugooyada inala damacsanna ilaahu wixii shar ah oo dhibaato ah oo lugooya inoo maleegayaan ilaahu adaan ka magan gelinaa